كلي إن الغفك مسلم هذا مسكوا ما في الله كبعد إن الجري مركز أدينا دليل كاجي وحياة كعدين السي وكا مصيانة ما هو والله الكتاب عادي ما وكا مصيا سي أكون فهنسيو آيات سورة العنكبوت كتاب كاين نيسو ودا نمبر كيدا دي سينيسا كبعد ما ستو سيسولو ايغينا وان كو شرحيا انتي لهيغا فهنسي وي والله ايوه سي وناكسن سورة العنكبوت عاد كنت نيوكوات سورة انت اسمع وديني ابو ستالين ninka wali ma wadata mise xogaa hadda soo leeyahay waa tawuhu kulleeyay ma waanta miyow anaku aadaha quraanka ciyaar uma qaadano wallahi billahi ninka wallahi laakiin haddii ninka labad ku weeraraysaane ninka uu kaadi walaal uu kala kaadi hadii kana way u kacaysayo walaal ay qabsanaya laba meesha loo joogaa soo ma hadde دور السؤال هذه لفتركها كوايا ما هو بس ما بيني ما فاتي maxaa cali oo aayadaas waa ka heli doontaa ma ku dhihino beautiful meel lagama aadi karo aayadaas toos bay u su'aalaysaaba nabiga la su'aalayaaba nabiga isaga daa isaga yaaniga nabiga baa la su'aalayaaba leeyahay war miyas aan bar ku celiya mar intuu raadinayo oo mise waxa weeye miyaysan ku filleen ba kitaabkan kugu soo dejin oo lagu akhrinayo ayaka iga wallahi hadda waxa ku jirta naxariis iyo xasuusin loogu talagalay dadka rumaynaya not for everybody xitaa dadka lagu talagalay ba xitaa dadka rumaynaya muuminiinta muslimiinta lagu talagalay sida Abu Staalo oo naxariista iyo raxmada ka qaatay 10 aayadood uu haysto ma sha Allah abaa chamboka wallahi had ilaahan kugu dhaari firi maya maxaa cali oo firiya qofka sunniga ah ama qofka shiiciga ah aayadaas waa inuu markuu arko waa inuu ka leexdaa aayadaas meel uu ka aadi karo ma jiro waayo qofkaas wuxuu taagan yahay maya naguma filno ayuu taagan yahay absolutely waayo hadday kugu filan tahay maxaa waxaan oo kale inta ugu daawaya weliba maskiin kee maxaa la saaxiib haashimi toos buu muu oran gaal wey qofka ama muslim buu wuxuu dhahay kaliya diinta waxa kuma dhameystirna hadii uu san qofka sunnaha qaadan kitaab kaliya no adigoo sii jilcin dhahay weliba qof cadaan oo ingiriisa oo diin haysan hadii kitaabka kaliya isku dhiibo maya waxa weey waxa dhameystiraysa sunnaha nabiga nabiga dhamaaba meesha keentay ba oo ilaahay la hadlayo uu leeyahay ba war miyaysan ku filneen ba dadkan نبي بابا كذا باري نقولنا يا بدتك عجيب والله قولت I promise you maxaa cali su'aasha aayadaas meel laga aadi karo ma jiro never laakiin aayad ma qabato nimanka suuradii waan soo saartay aayadana birkeed waa imisa konton iyo ko niyo dadkeena aayado ma qabto niyo firi maxaa cali doodan anaga waxaan noo adkeynaa mataqaanaa dad kale haddaan ahaan lahayn suurtagale ahaan lahayn laakiin Soomaali haddaan nahay way adag tahay doodan absolutely waxaana noo adkeynaya dadkeena waa baariyaal maxay baari u yihiin yani waa baari dee waaridkooday baariyaal u yihiin macnaha communitygooday baariyaal u yihiin waa dad jecel inay macnaha inay ilaaliyaan maxay ahayd sumcadda reerka iyo howlahaas Soomaali haddaan nahay guuleedow in yar hal mar aan dhac ikaad Haashimiyo fiir marka maxaa aliyo anaga marka waxay noo arkaan dad caasiyaal noo arkaan dood maba loo jeedo meeshan waxaa loo jeedaa kaliya dad oo dhaqankii ilaalinayo iyo wixii lagu soo koriyay iyo dad caasiyay bas meeshan loo jeedaa dhibaato markaas de wallahi wax kale looma jeedo meeshan marka dood wax wada hadal isweydaarsi aqoon kale kordhis ma jirto marka waxa soo dhanba uma jeedaan maanta oran aayado u turtuur adig uma jeedaan ku soo Haashim halkan waxaan ku hayaa suurat al-ankabut waxa soo qaadanaa aayada 51 quraanka Ilaahay uu fasiraa quraanka Ilaahay waa silsilad waxa weyn aayadba aayad bay fasirtaa hadaad ka soo bilowdo korka toos baad u arkaysaa dadka laga hadlayo iyo sida dadka loola hadlayo markaan idin leeyahay aayad kasta waa inay macno leeyahay tad aayad la soo cararto aayad kaliya soo qaadato inaad tiraahdo nooga jawaab siyaasa leeyri macna waa inaad quraanka aakhrido sidoo isu leeyahay hadba aayad waxay ka bilaabmaysaa markaan hadaad dib u eegto aayad 46
وحلي إلهي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلى الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أهل الكتاب وجران الكتاب يهودي نصارى سوى هنجرتي مركا معنا marka laga hadlayo aayadan way si soo tartiibinaysaa iyada ay si soo fasiraysaa iyada ay si soo wadaysaa ilaa laga imanayo aayada ay ku dhigsanayeen oo ah soo aayada koob ka tar maaha ha aayadan 46 horta iyada Soomaaliya noo sheeg horta ilaa waxa weey hadda saan u faahno waxaad ka hadlaysid ba okay wuxuu leeyahay wala tujadilu ahla alkitab macna hal murmin iyo ahla alkitab إلا بالتي هي أحسن وحناكسن معناه تي وناكسن مو يعني هلا مرمي أو هلا وحويان مر يشكر هلا سميني صح إلا الذي هي التي بالتي هي أحسن إلى الذين ظلموا منهم يجا معناه كوي نفتو الظلمية مو يعني وقولوا وحي أرندونا آمنا بالذي أنزل إلينا ونؤمن كينا الوسودتي وأنزل إليكم إذا كان الذي كسودتي وإلهنا وإلهكم واحد وإلهين إلهين واحد سي وهالمد بحيلا كوا ونحن له ما وحن روماني محات محاك ماشي وحن روماني وان روماني من محلي كوا ظالمينتو وان روماني محي وان روماني وقول آمنا بالذي أنزل إلينا كينا لغسوتي وأنزل إليكم إذا كان لغسوتي إذنك أنزل إلينا أنك نلقوسوت إلينا وأنك تبغون نقولنا وإليكم يا إذنك أديك لقوسوت دشي إليكم واتشمع أديك أنا ونقول كرتا إذا أنا ونقول كرتا كلو أحد عربي هل قف بشانس ولا جهل يا ماشن ده هل قف لحظة يهلو كتابكم نبي جماعة هاي نبي حسب على سو نبي ضد مسلمين مسؤول كما هو وحويان ضد مسلمين معه سونو هذا أنك أنا معه مركان marka kitaabka dadkaas oo dhan ma lagu soo dajibisay nabiga lagu soo dajiyay nabiga soo dad maga ila nabigu waxa gudbiya soo dad maga si dad ma soo muslim kama dhigaya soo dadkii marka isaga kuma waxa yanda madaba raacayaan haye siiso haye noowad noowad haye way soo soconaysa wakadhalika anzalna ilayka alkitab saaso kale kitaabku ugu soo dajinay فالذي آتيناهم الكتاب يؤمنون به كتاب كانوا كانوا يآمنون وقف إلهي السكينة دي وانا قلبي سجليه ومن هؤلاء من يؤمن به كوا حكم غير آمنية وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون آياتها يقولون كم بدك عذيقيان كوا قال ولا ما صور يا بابا آيات أفرتين اللي حبان كوضع وحا يقدم بس ماكو مغرينتي عطها يقبح حمية أنا ماكو مغرين ما مغرس أنا أبو سري يقول له وأنكم مغرين برنوشك برا وحا لقوسو دتشي إذنك يعني أنت كوض برا إليس ما هو كعنك على عادي وحوين معها وكعنك على عادي إلا ما يشوف ريوا وين بكوتشي لما وقتين واحد إذا كان لجوسه تشي أنا جنا لجوسه تشي وإلهنا وإلهكم إله يبغى أنا جنا وسي واحد ونحن له مسلم إذا كان نسودين أو نحن مسلم محي هنيكو ونحن له مسلمون وإحنا هاي مسلمين بوي هنا إسقى أوكي إلهي بوي زمان مكا هاي جود waxa weyn waxa lagu soo muslim maxay ku yimaarka aayada laftigeeda wixii lagu soo dajiyay nabiga Soomaha oo kitaabka ayaan leeyahay waanu raac marka kitaabkaas ayay ku muslimin miya ayakuna kitaabka la soo dajiyay miyuusan hayn kitaabka muslim ku sheeganayaan muslimiin yihiin markaan ku leeyahay guleedo maxamedow muhiimada laftiga waa imika markaan labadeena muraneen isqabsano waa inaad ogaataa meesha waxa jiray muran oo ah in la isu cadeynayay sida ilaahay u aaminsan sida ilaahay loo aaminsan yahay ma fahamtay marka halkan waxaad ka arkaysaa inay yihiin group rabo leh da annagu ilaahay waanu aaminsanahay sida ilaahay u aaminsantii waxaan nahay muslimiin laakiin ile diinteenu waa test qof kasta oo dhan kara ilaahay baan aaminay nabigiisana waa aayadaas mar anaan af Soomaali ku akhriyo oo maqlaaya ma ku akhri kartaa ma yasala ma aan ku boosiyo si degdeg ma ku boosinayaa waanu galay wallahi هل الأمر من أهل الكتاب كقولون كأهل الكتاب كوا مو يعني الأمر من يكون أهل الكتاب أحسن هذا بالله هذا المناقشين مو يعني كوا ظالمين تمو يعني أردها يا وانو الروماني وحي نلقوسو دتشي أنا كم يوحي لقوسو دتشي عاديكا
ilaahayna iyo ilaahaaga waa mid weeye anakuna waxaan nahnay muslimiin asaga u ah halka waxay ka tusaysaa iyagoo daalimiina inay been sheegayaan oo ay leeyihiin warta anagu wixii adiga lagu soo dejiyay wixii anagana lagu soo dejiyay waanu aaminay aayada ka dambaysa hadana fasiraysa oo leeyahay daalimiin been bay sheegayaan muslimiin baa tiri sheegayaan laakiin waxay ku caddahay waxay ku caddahay aayada dambe waxay oranaysaa ma taqaana hadan daalimiin walaal bay faham hadan daalimiin beenaha sheegaan muslimnimada waxay ku sheeganayaan leeyihiin kitaabkan adiga lagu soo dejiyo kii anagu haysanay ayaa muslimiin ku nahnay kitaabkaas ayaa muslim ka dhigaya waa laga daba tagayaa aayada ka dambaysa ka daba tagaysa okay waxay oranayaan wakadhalika anzalna ilayka alkitab saaso kala kalan kitaabka ugu soo deji waxaa baa lagu leeyahay falladina aataynahum alkitab kuwi aan kitaabka ku soo dejinay yu'minuuna bihi way aaminayaan ومن هؤلاء من يؤمن به وحنا كميدا كوا آمري دونا وح كميدا قار آمري دونا وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون آياتها يجانا كم بدك عليك دونا كوا ديدي مويان كوا ديدي وايو وظالمين تبين تشيعية إك قرآن هو سفسر يا واصل السلام وصوص عنا يا ولا وحنا روان سلقت إلا هذا وحنا وحي عتينا سكلي إن لقى هذا كتاب كإلهي آيات كإلهي ومسلمين وياهي وحنا سؤال ما تقانا شيء أو بستالية خالدنا يمسلو كان نقدان quraanka ilaahay hadaad hal aayad soo qaadato oo taa aayada ay macneeya mar kasta waxa dib loogu noqdaa aayada ka horeysa aayada ka dambaysa waayo murattab kitaabku macna uu habaysan yahay aayad ba aayad bay fasiraysaa waxa soo dhan waan kugu raacsanahay laakiin ilada jirto waxa ma taqana aayadahan iyo wixii dhan waxay wada waafaqinayaan xoojinayaan kaliya in laga hadlayo kitaabka quraanka iyo aayadka ilaahay hay'ad idageyso marka lagu leeyahay waxaan kugu soo dejino kitaabkii quraanka ah nabi maxamed kitaabkii loo soo dejiyay nabi maxamed ummadiisiibu u keenay kitaabkii quraanka wuxuu ugu keenay akhlaaq wanaagsan wuxuu ugu keenay inuu hadal fiican si dabci wanaagsan oo dhaqan wanaagsan ugu sheego waa sida la raba anigu beritoole inaan adiga iyo kanba ula dhaqmo waxaa soo dhan ma diidan walaal hadalka waa dooda wad balaarinaysa ma diidani wallahi waa diidantay oo billahi waa diidantay oo tallahi waa diidantay wanaga saddexdiiba kugu maray maantay waxaanad u diidan tahay waxaad leedahay kitaabka hadaan qaato oo sunnada ka tag kitaabka ma nagu fina ta kitaabkii nabi maxamed lagu soo dejiyay hadaad sunnadiisii diidata kitaabkiina waan qaatay kitaabkii nabi maxamed ku soo degay it means qaybna waad ka tagtay waad kullaatay qaybna waad qaadatay hadda waad kullaatay haashimi eeg aayadii 46 waxa la yiri waxaanu wixii lagu soo dejiyay wixii anaka lagu soo dejiyay ayaan muslim ku nahnay iyagoo been sheegaya wixii lagu soo dejiyay wixii anaka iyo adigaba lagu soo dejiyay muslim ku nahnay waa kitaabo un aayadda ku xigta 47 waxa laga hadlayaa haddana oo ilaahay sheegaya anaka ayaanu saas ugu soo dejinay kitaabka adiga iyo kuwaana siinay kuwaan siinay kitaabka oo rumeeyay waxaana ka mid ah kuwa rumeeya iyo kuwa diida aayaadkeena kaafiriinta mooyaane aayaadka ilaahay baa hadda laga hadlayaa oo isfasiraya wala dhigayso okay ilaahay eeg nabi maxamed waxa lagu leeyahay hadal wanaagsan kula hadal kale wanaagsan meesha la soo hadal qaadan waa aayaadka adigu waxaad ka hadlaysay waa maxayna waxaan ka hadlayaa eeg boontka dib ugu arkay xogelinta firfirad baad noqotay dib baan ugu noqonaa boontka waxa weeyaan maxaa noqdayna xogay waa ku neer baad noqotay up and down waxa weeyaan maxaa ka wadaa yani macnaha de sina waxbayn u wada wadnaa sina mararka qaar baad iga lumaysaa ma kaabalumay aayaadka ilaahay waa maxay aayaadka ilaahay maxaa laga wadaa barsi fudud baan ku weydiinaya aayaadka ilaahay maxaa laga wadaa aayaadka ilaahay waa kitaabkii oo dhammaystiran oo nabi maxamed ilaahay u soo dhiibay mid baan kuu sheegaya okay aayaadka ilaahay soo maaha kuwa dadkan aaminsan aayaadka ilaahay la sheegayo dadka aayadaha aaminsan waa dad muslimiina okay aayaadka ilaahayna kitaabkii baa tiri kitaabkii ilaahay bay qaateen sunnadii nabi maxamedna way raaceen kitaabka ilaahay way qaateen aayadan soo ma ku qornaa ya kitaabka ilaahay way qaateen soo ma ku qornaa aayadan aayadahan waxa ku qoran niman xitaa daalimiin oo been sheegay oran doona ilaahaygu waa isku mid muslimiin aayaadkii wala dhigayso waa fahmay taas daalimiinta laga hadlaya waxa laga hadlayaa Soomaha aayaadkii ilaahay iyo kitaabkii ilaahay soo diray inay ku qaateen oo muslimiin yihiin qaarna ay diideen Soomaha si fiican inta waa isla fahmay marka taas waa muslimiinnimadii haddaba waxaa tiri Soomahana sunnahana waa laga hadlayaa sunnahana ka soo saar labadan aayado hadda sheegaysay 46 iyo 47 ka soo saar sunnaha waxaan rabaa si ay markhaati ugu noqdaan guuleed iyo ninka la yidhaahdo Abu Bustaale walaalkay waxaan idin leeyahay ninkaasi su-aashii 11 buu maraya
هل سؤال إلا ما أنت كتاجني محمد قال الإسلام ده قال الإسلام بلوي هاي ajarkan waa duuban yahay ajarkan waa duuban yahay adigaana geliya 40 50 ku bamrin waxa tii aayadan way isfasirayaan adigoo diidana eegayso hadda hawa adigu raacsan tahay adigu in aayadu isfasiraan haashimi afkaaga hadda waxaad ka qirtay in laga hadlayo kitaabka ilaahay waan ku soo saaray ma horta nabiso waan ku soo su'aasha weydiiso ku dhawaad kaaga jawaabaya aan ku dhameystay sodon sakan baa kaaga dhameystinaya hadda waan isku afgarnay aayadan 40 iyo 47 in laga hadlayo kitaabka ilaahay aayadka ilaahay inay rumeeyeen qaarna sidaas muslimiin ku hayeen qaarna diideenba sunnihii nabiga ayaad meeshan ka ku tiri sunnada nabiga waa laga hadlayaa hadda noo guda gal markaa meesha ka soo saaray sunnaha nabiga laga hadlayo anaa ku sheegaya ku soco aayad baa jirta qoranaysa adiicu allaha wa adiicu rasuul taa waan u geli doonaaye dawa aayad quraana eeg may okay waan u gelinaa taa aayadahan aad weydiinaysaa mawduuc kale qusayaan laakiin aayaddan aan ku sheegaya محمد واحد كان هو قرانكي ولا قلنا انا ربا بين قال اطيع الله ادرس ما مره بين قال لكن سهرتا ايتن هدا اد شيغيس 40 تضو ما لغا هلايا mise laga heli maayo wal aayadahan waxaan ka hadlayo inaan ku leeyahay aayaduhu markasta aayadan quraanka waxay ka hadlaysaa dad specific oo sheeganaya muslimnimo iyagoon ahayn nabi maxamed ka oran doona war muslim baano ilaahayna waa isku mid waxa soo dhan waa isla afgaranay laakiin waan ku fahansan Allah adiicu rasuul ma ugu galnaa mise xagana ka soo saaraysa sunnaha nabiga walaal horta dhigeyso eeg mid baan ku noqonay suuratul ankabut idinka keen inay ka saayiri weydii halkaas ku jirta aayadahan ku jawaabi karo waan ka jawaabay halkan adiicu Allah wa adiicu rasuul kuma taalo walaal halkan aayadahan laftooda kuma taalo okay good kuma taasma ana kaaga waan gali doonaa halkaaga su'aal weydii saxdo inta hadda nagu filan qaybtan ka bacdi su'aashaadana weydii ka bacdi aan u guda galno ayadaha kale bustaan aan sina hadal iyo guuleed aniga su'aasheeda weydii oo ma aan waxa kula ninkan hadalkooga su'aashan ku joogo goladan kula anigu aayad buna galab meeshii buu ku rafaadee wuxuu ka soo saaray kaliya hadduu qaadan lahaa marka kabud aayada koowaad in laga hadlaayo ilaahay kitaabkiisa kaliya wax lagu muslimaayo hadduu qaadan lahaa wuu diiday 46 buu la geliyay 47 buu la geliyay waxa adeysay kaliya 41 iweydii su'aashaada brother ka bacdi aan markaa abustaale iyo guulada champ aan u ogolaano hadal abustaalo iyo qof walbana ha dhageysto sida jawaabta cad loo bixiyo haddii su'aal weydiinaysi may abustaale isagu waxa weeyaan inaan isku soo wada socono weeyaan su'aalahayguna adaa Allah ku barakeeyo su'aalay weydiiyay ana aadan ku weydiinaya sababtaan guuladin wax yar sharax mooyay su'aalaysay kamara markaan su'aasha ku weydiinaya su'aashu waxa weeyaan kitaabka quraanka waxaad ka soo saaraysaa shanta salaadood ee tukana kuma jirto haddaan ku sheego kuma jirto kuma soo saari kari xaq shanta salaadood markaas waa yaad tukata shanta salaadood markaa ma tukadii shan salaadood baan ku dhahayaa maxaad tukataa waa taa jawaab oo maxaa okay ma imsi su'aal baad weydiinaysaa ka soo saar baad ugu tiri kama soo saari karaan kuma qornaa 12 su'aalood baad weydiisay kama xumaan كويت وقول سؤالك مودينا هل سؤال بان كل بس كله كوجود دقيقني هل سؤال مبهد أنا تيوم ما كوجود دقيق إيه waxaan kaliya aan ku dhahnay ma taqaanaa kitaabka quraanka ma lagu cadeyn karaa inuu muslim yahay taas baanu kolba si ku weydiinay oo markii dambe cadeeyma ku soo saarnay marka tiri adigu kitaabka lagu muslimo shan salaadood kitaabka quraanka kuma taalo aniguna shan salaadood ma tukadi muuqaalo ya saddex xageed ka soo saartay adigu ما saddex baad tukataa waan saddex xageed ka soo saartay waa su'aal ma laba tukataa ma saddex baad tukataa saddex xageed ka soo saartay adigu ma jeebkaaga aadaan ku weydiiyay adiga saddex xageed ka soo saartay jeebkaaga ma hal baad tukataa ma laba tukataa ma saddex xageed ka soo saartay way ka boodina ma su'aasha ma ka boodina ka bood maya shan su'aalood ma tukatay waadi cadaysay shan su'aalood quraanka kuma jirta baad saddex xageed ka soo saartay walaal waan ku weydiiyay haddaan kula garankaagu ma cadaan baad adigu tiri xageed ka soo saartay waa masiibo shan waxaad ii weydiisay xujo ahaan inaad ugu dhehdii kitaabka laga heli maayo saddex waxaad ii weydiisay qalbigaaga aad ka ogtay in quraanka ku talo saddex kaliya that's why mar waad diidantay waad qarinaysaa adoo saddex tukada ayaad qarinaysaa oo quraankiina ay ku taalo laakiin yaasha way ka boonday waa dhamaatay hashimi muuqaaladeeda dib u daawo 100 jeer baan sheegay inaan saddex tukado 100 jeer baan sharaxay qaabkan u tukado qaabkan u weysaado live badan baan qabtay oo ka sheekeenayo anoo quraanka dilishanay kaliya sidaan u tukada sidaan u weysaystaa sidaan u sujuudaa sidaan u rukuuca wax cusub maaha waad saxsantay muuqaalada horena kuma noqon dhow jeerna waan adoo waana soo qabsado waan isu heli weynaa Chinese
haddii culaa ma guda galnaa mise waxaan wey horta abustaali guuleed baanu hadda labadin waan wada hadalnay raggan aan soo gelino haddaa u dhibtin markaa aan u guda galno kabacdina haddii culaa haddii rasul haddii u baahantay laakiinse bar dadka kale bar iyakana aan kusoo dhaweyno ame kusoo dhawe waad mahadsantahay haashimi brother may adiguna waan saasaan waan iska bahlaya mise waa caad waan saaran karaa joog hay maxamed oo ninka 100% waan wataa maadaama uu kulleeyay aad shaqada biyo badan wara abu salo kada dadkii loo baahnaa may waraanu wallahi waxa rabaa maadaama dad islaam nahay